ولبا حنون وكدع قلوب تقفك بني آدمك وكفقية إلهي عبسديس إلى حد بعض العلماء كنت المامان أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشهبة يقينه dadka waxa u fiican bay dhahay ninkan diintiisa aanay shahwaatu nafsigu ka fasaadin ama yaqiintiisa iyo iimaankiisa aanay ka khalkhalgelin shubahaadka ay aakhira wuxuu ma badbaadaya yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim wadannada muslimka markii la joogay marka shubuhaadka laga warramo inta badan waxay ahaan jireen shubuhaatu ahli lbidc dadka bidcaadka ku dhaca waxyaabaha qaldan ay ismoodsiiyaan inuu sax yahay ee ilaahay ku caabudaan laakiin duulkiina halka jooga waxay inta badan iyagu la kulmaan waa shubuhaatu ahli lkufr waa madmadowga dadka laga gelinayo rumayntay diintooda rumaysan yihiin hadday tahay arkaanul iimaankii iyo hadday sharaa'icda tahayba ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisii iyo kutubtiisii iyo qiyaamaha iyo jiritaankiisa iyo qaybkoo dhan shubhadu marka fi luga waa aliltibaas waalikhtilaat waa shaygoo dheehma حق يا باطل كاد كلا ساري كري ويدو وقفك محا حق يا محا باطلة وحيابه كلا عدين كري وايا هذا بشبهاتو انت بدنا انو تلمام انو اما ان ربنا ان وحكات تلمام انو شبهات كعقلي ديني عقدي قفك دينتي سكا حماية وانا حد هدو شبهات سيقفك قالوا مرض الهي quraanku inta badan munaafiqiinta iyo kafarada iyo ahlu shakiga iyo dadka noocaas iyo kaga warramo fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada ilaahay ku tilmaamay wa ama alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wa marad marka koowaad inta badan masaa'il fudud ku bilaabma laakiin marka dambe diin la'aan dadka bada shubahaadka qaarkood waa taa'if min ashaytaan oo waxaa ku filan alisticaada waa waxaan bini aadamka qalbigiisa degana khawaatiru ku soo dhacdaya oo inta badan qofku iskaga difaacayo sidii xadiidkii nabigu uu sheegayay inaad shaytaanka iska naartid acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim shubhaadka qaarkoodna inta lagu celceliyo jawaanib badan laga keeno ayay degaan dadka badh kuwaasi waxay u baahan yihiin fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun in dadka aqoonta u leh waxa kan la weydiiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala kitaabka qur'aanka ah ma jirto iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam gaala shubha ay soo arooriso aanu ka jawaabaynin ilaahay nabigiisi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira wax kastoo ay kuula yimaadaan waxaanu kuu keenaynaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wax fardaamin kara oo xaq ah kitaabkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin kitaab baanu kuu soo dejinnay wax walba kuu caddaynaya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wax walba caddaynaya oo hanuun iyo naxariis ay ugu sugan tahay dadka rumeeya dhibteennu se waxay u badan tahay kitaabkaynu ghaafil kannay oo wixii wax dawaynayay ayaynu moogannahay
waxaa laga yaabaa dadka intiisa badani inaanay akhriyi karinba inta akhriyi kartaana inteeda badani inaanay fahmi karin inta wax ka fahmi kartaana in badanoo ka midi waxay u baahnaayeen inaanay kala soo bixi karin ka istinbaati karin ayo inaad darajadaa gaadhaa waa mas'alo dambe laakiin waxay leenahay xaqiiqa ahaan wixii loo baahnaa isagay ku jiraan rusushana hadduu kay la hadlayaan mulxid yaan ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn iyo hadduu yahay ku ilaahyo badan rumaysan iyo hadduu yahay ku aakhiro inkiraya iyo hadduu yahay ku rususha inkiraya qur-aankan baa la yidhi nebiga kula hadal calayhi salaatu wasalaam lama odhanin meel kale daliil uga baadi doon waayo rususha daliillo kale waxyigaasaa la soo siiyey taa macnaheedu waxa weeyaan dadkan dhammaantood bikulli fi'atihim isku dar hadday malaaxida yihiin hadday ilaahyo badan caabudayaan hadday aakhiro dafirsan yihiin hadday rususha dafirsan yihiin hadday malaa'igta dafirsan yihiin intaba ilaahay wuxuu kula hadlayaa qur'aanka kan taa macnaheedu waxa weeyaan intaas oo mas'alo oo la tilmaamayo xujadii aad u baahnaydee dad lagu qancin kari lahaa waxay ku jirtaa qur'aanka kan waxay ku jirtaa qur'aankan laakiin dadka markaa diintoodana jahli kaga dhaco isla markaana fitankana ay mucrad u yihiin ay u banbaxaan meesha beledu taallana siduu u badbaadayaa su-aashu waa kaas